kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararka aan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid ah nin la sheegay inuu yahay Soomaali oo weeraray safaaradda France ee Tanzania wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada Soomaalida oo deegaano ka qabsaday Canfarta iyo waliba Taliban oo Turkiga ka codsatay inay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay ka baxeen ciidamada shisheeye laakiin Taliban ayaa ku adkeynaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhamaadka bishan August sida laga soo xigtay laba sargaal oo Turkish ah codsiga ay shuruudaha ku xiran tahay ee Taliban oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegeen xukuumadda Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhamaaday duulaankii Mareykanka ayaa Ankara uga qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqada halista ah haddii aysan ciidankeedu Afghanistan sii joogi doonin Turkiga ayaa qayb ka ahaa howlgallada NATO ee Afghanistan welina waxaa garoonka diyaaradaha ee Kabul ku sugan boqolaal askari balse saraakiisha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay waqti kooban uga baxaan Afghanistan laakiin xukuumadda madaxweyne Tayyip Erdogan ayaa horey u sheegtay muddo bil ah inay joogi karto garoonka haddii laga codsado waxaana Turkigu uu kaalmo farsamo iyo mid amni ku taageeraya garoonka diyaaradaha ee kadib markii Taliban ay gacanta ku dhigtay dalkaasi Taliban waxay codsatay taageero farsamo si ay u maamusho garoonka diyaaradaha ee Kabul ayuu yiri sargaal sare oo Turkish ah isagoo raaciyay si kastaba ha ahaatee in Taliban ay dalabtay in dhammaan ciidamada Turkiga ay baxaan waxayna adkeyn doontaa howl kasta oo fulin u baahan ma caddo in Turkigu uu ogolaan doono kaalmo farsamo haddii aysan ciidamadiisu halkaasi sii joogi doonin oo ay sugi doonin Turkiga ayaa amaanay waxa ay ku tilmaameen hadallada dhaxaadka ah ee Taliban tan iyo markii ay qabsadeen Kabul waxayna sheegeen inay u furan tahay inay la shaqeyso marka dawladda cusub la dhiso afhayeenka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa talaadadii sheegay in kooxdu ay xiriir wanaagsan la yeelatay Ankara haatan nin ku hubeysan qoriga Dirondoriga u dhaca ayaa la dilay kadib markii uu weeraray isla markaasna ku dilay 3 askari oo boolis ah iyo nin ilaalo ah agagaarka safaaradda ee magaalada Dar es Salaam ee caasimada ganacsiga ee Tanzania sida ay sheegtay madaxweynaha dalkaasi Samia Suluhu Hassan Samia ayaa Twitterkeeda ku soo qortay in la dilay ninkii weerarka ka geystay ayna xaaladda haatan degan tahay booliska Tanzania ayaa baaraya dhacdadani oo uu geystay nin asalkiisa yahay Soomaali kormeeraha guud ee booliska Simon Sierro ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay ku tuhunsan yihiin in uu ninka weerarka geystay laga yaabo inuu ka mid ahaa gobolka Cabo Delgado ee Mozambique laakiin ay weli baarayaan arintani booliska ayaa bixin tafaasiisha la xiriirta sababta uu ninkani hubeysan weerarka ugu qaaday iyadoo cidda uu beegsanayayna weli la xaqiijinin muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada oo aan si dhab ah loo xaqiijin karin ayaa muujinayay albaabada safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam nin taagan banaanka albaabka iyada oo la maqlayo dhawaaqa rasaasta TV-da Tanzania ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya booliska oo xiran jaakadaha aysan xabada karin oo isku dayay wax u muuqday media banaanka safaaradda sida ay warisay wakaalada wararka ee Reuters haatana wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada Soomaalida oo deegaano ka qabsaday Canfarta waxaa maalintii labaad oo xiriir ah galaya dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta oo ka socda deegaano ku yaala galbeedka gobolka City wararkii ugu dambeeyay ee laga helay dagaalka ayaa sheegay in kuwa Soomaalida ay guul weyn ka gaareen dagaalka isla markaasna ay isku fidiyeen deegaano hor leh deegaanada ay ciidamada Soomaalida isku fidiyeen ayaa kala ah Rooto Taryana ilaa iyo Birta Dheer kuwaasi oo wax yar u jira magaalada Cadayti oo ay ku xoogan yihiin kuwa Canfarta waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro xoog leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa in ka badan 15 qof halka uu dhaawac kor u dhaafayo ilaa 40 sida ay xaqiijiyeen saraakiil dhinaca caafimaadka labada dhinac ee dagaalka u dhaxeeya ayaa waxaa soo kala dhaxgaray gurmad xoog leh waxayna ciidamada dagaalamaya u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley dagaaladan ka socda meelo ka mid ah dawlad deegaan ayaa waxa ay ka dambeeyay kadib
markii maleeshiyaadka canfarta ay weerareen shacab Soomaali ah oo deegaanadooda ku sugan. Dowladda Itoobiya wali kama aysan hadlin dagaalka galay maalintii labaad, waxayna dowladda federaalka culeyskeedu dhan isugu geysay dagaalka ay kula jirto jamhadda Tigreega ee TPLF kuwaasi oo ku wajahan magaalada Addis Ababa. Dagaalkan wixii warar ah ee ka soo kordha waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe. daawadayalintaas ayaa ku soo afmeeraya war wixii dal iyo daafaha caalamka idinkaga haynay. wararka waxaa idiin soo saaray oo idin akhrinaya anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.